abwaan maxamed cali kaariye ama dhakhtarkii jacaylka waxa uu ahaa abwaan suugaantiisu ay caan noqotay oo carri idig gaartay heesihiisa badanaa waxaa qaado oo ku luuqeeyo fanaanka weyn ee xasan aadan samatar bal idaajaa ha inooga sheekeeyo oo ha inooga warramo sheekada qisada heesta kuwa loogu magac daray hees jacayl ah oo ay Soomaalidu aad u taqaan sheeko dhab ahaan u dhacday darteedna ku soo baxday anigu soo goobjoog ma ahayn kuwii ahaa qaarkood ayaa ii warramay oo igu yiri Allah u naxariistay hal abuurkii caanka ah ee la oran jiray maxamed cali kaariye ayaa bari waxaa haleelay dareenka jacaylka kaasoo dhismaha jirkiisa iyo maankiisaba si degdeg ah ugu fiday gabadha uu jacaylkeedu wareemay waxa ay baqadaray inay ahaato mid uu magac iyo muuqba u garanayo oo ay hay'ad qura ka wada xoogsadaan sidaa darteedna toddobaadka intiisa badan ay waji ahaan u kulmaan laabuhu yeelkoodii ha yeeshee la kulankaasi fanaanka waxba uma leelayn jirin ololka dabka kalgacalka kamuu qaboojin jirin maxaa yeelay waxa ugu wacnaaba gabadhu iyada oo qalbiga maxamed cali inuu xaggeeda soo jiro ayay haddana ismoogaysiisaa inna uma baxdo inna uma jilicdo inna uma jexinjexdo fanaankuna inkastoo maalmihii dambe inuu is-ilowsiiyo uu ku dadaali jiray haddana ma samro oo inay u gacan haadiso kamuu quusto beri dambe isaga oo aqal gudihii rag dhowra kula caweynaya qudhiisuna uu markaa sheekada wado ayaa si lama filaana waxaa dhagihiisa ugu soo dhacay gabdhaha xaafadda midooda oo tu kale u yeeraysa waxay ugu yeedhay isla magacii ay lahayd inantii uu isagu jeclaa ee markuu hanan waayey inuu ishalmaansiiyo uu ku tashaday heblaay markay tiri ayuu qaracmi gaaray markaas baa miyirkiiba ugu dambaysay wuxuu kala garan waayey magaca uu maqlay in isaga loola jeedo iyo in kale kolkaas buu fadhigii halhaleel uga kacay isaga oo aan dariga daarad ka gelin raggii uu haasaawinayay iyo sheekadii uu waday toona dhagal qabto isaga oo aan lahayn ayuu qolkii dibadda uga booday waxba isaga oo ay u kala cadaan laayihiin riddana liqdaaran ayuu nabarkii labaadna ku dhacay wuxuu maqlay gabadhii loo yeeray oo tii u yeedhay ku leh hee hebla mase codku waa codkeedii oo aan cadhis ku rogin waa tii uu jeclaa ee u soo loodsami weyday codkeedii markaas buu afarta garjaho indhaha midba mar u diray wuxuu isleeyahay qofka loo yeeray ee aad codkeeda maqashay tukana ma ahee waa iyadii oo garabta ku soo raadisay oo intay malaha kaa naxday goosatay inay sidan kuu dhaanto mar kale ayuu afarta garjaho indhaha u kala diray jaanqaad meel dhowa ayuu dareemay kolkaas buu dhanka midiga ku xasilay mase waa gabadhii magaceeda iyo codkeeda uu maqlay ee uu agagaarka ka jeedaalinayay hase ahaatee inkastoo xagga muuqa midabka iyo codkaba aan tiisii laga aqoon haddana tiisii ma ahayn markaas baa nabarkii saddexaadna lagu soo tuuray saddexdaa nabar markay isu raacday ayay laabtii oloshay sheeko uu islahaa way kaa dhammaatay ayay maankiisa ku soo celiyeen sidii wax la arooriyey ayuu u ekaaday raggii iyo aqalkii dib uguma laabane horay buu isaga dhaqaaqay isaga oo ay muruga buuxisay waa hal abuurkii weynaaye hees buu halkii ka bilaabay heestii sidiisa caanka u noqotay ee kol dambe uu xasan aadan ku luuqeeyey waa heestii uu ku bilaabay kuwa loogu magac daray ee muuqa aan la kala garan caku muhashadoodee heesaha macaan iyo muusig iyo codkay dilay dhagaha aan ka maale markii aan ilaawaba wax isoo mirkiciyoon maqla waayi maayee ma hayo mana sugaayo iimana maqnee maareeyo sidee buu cishqigu maskaxda iyo qalbiga uga miirmayaa waloogu magac daray muuqa aan la kala garan